لما مدحليو دالياراي لما شعبكو ودقاقدين قف كستو دنكا يكديلي لما مدحليو دالياراي لما شعبكو ودقاقدين قف كستو دنكا يكديلي ودارارتان دولة داليني دهنا خاطمو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياشي دا قيمها يقدرين تانا قمضان التلفزيون كعالمي وبري تي في وحاها أنا كبقوني قصري وكدقية مقالة قوتباق عاصمة لما دالكي سودان كرنال أحمد شامع قدلي وكدقان ودكان سودان كان مدحان سراكيشي هوري الصومالية متصدن سنة أنا كدقان ودكان سودان كسروا برنامجك حبتوا بري وما سنت هذا ويسول وين يعني ما أنت هذه ميديا تصعد أحمد شامع وحكسو جدا ديجان كخاتمو وحابريها كتاجنا سواحا بدن تتكسر نحمرين برنامج كان حضر مامل كخاتمو وبلابي وهذا كخاتمو يسمعنا الآن أنت موقف رائع هذا برضو كسول وين هذه ميديا تصعد طبعا باص أنا وهدان سؤال هذا كجواب سوماليلاند iyo khaatumo wada hadalkii u bilaabmay markii ugu horeysay ka bilaabmay magaalada Caynaba markii ugu dambeysay haddana ka bilaabmay magaalada dalka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa ee laga soo saaray 2012 ka qodob arrinka haddana nahay shacabka Soomaaliya sanaga cayn ama reer khaatumo aanu nahay aad baan u soo dhaweynaynaa dhamaantood inta dadka fiican aad baan adoo soo dhaweynayna waxaan weeye guul ay gaadhay khaatumo u soo hoyatay iyo guud ahaan shacabka Soomaaliya sanaga yahay shacabka khaatumo aad baan u soo dhaweynayna haddaan adiga ogolaato inaan sii wato oo sii faahfaahiyo guush ay maamul goboleedka khaatumo ka gaadheen wada hadalkaas haddaan sii faahfaahiyo ogolaato waxaan jeclahay inaan sii wado waa u soo laaban doonaa insha Allah faahfaahinta وهذا الكخاتم يسمى الموقف كذا وحاجة دوانها سوى بحسي معارض بدن وكسر كذا دجان كان خاتمه مركز هرنا حكومة ده كمدها وهذا هنتي ودوكسون هاي كسر كذا وهذا الك موقف كذا تذكاس أما كسر كذا هذي وسردي هراي خاتمات هاي هذي أضيال هاي هذي شعب تهيما محات كذا هذا وحوي هرتا جودهان للبحنت وحد دورتي maamul li u samaystay maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia ayuu horta dhul bahanta samaystay wuxuuna ku shiray oo ku dhameystiray oo maamulka iyo nidaamkiisa lagu sameeyay magaalada Taleex waxaana maamul madaxweynaha iyo ku-xigeenaysa golaha wasiirada baarlamaanka lagu doortay markii dambe magaalada la yahay Saxdheer sidaas dhul bahanta isugu raacay in maamul goboleed ay samaystaan inay madaxweyne samaystaan madaxweyne ku-xigeen samaystaan golaha wasiir samaystaan baarlamaan samaystaan taladoodii iyo wixii ay wateen iyo wixii caalam iyo Soomaaliya ay ka doonayeen si ay ugu soo ururto ay u samaysteen maamulkaas si taladu u soo ururto ummad iska socota oo aan maamul lahayn oo isoo daba yaacaysaana guul mid Soomaaliyeedna kama gaadho mid caalamna kama gaadho mid gudaheeda aan kama gaadho sida awgeed ayaan maamulkaas aynu samaysanay haddana hadalka ugu soo noqdo hadday wasiirro hore yihiin iyo hadday yihiin kuwa wasiirraayeenba وشعبك عادي رخاطو كتسن أي هذا سكر واركي تدك ولا بنو عباس وتدك دول بحنت ولا بنو نيل وحقول دقيقين أو ميل وحكاقاتا أو هدي مامور كخاتم أو صعدة كبقية إنه عرورتي سبيلو وياه كبقية إنه بيلو عيال كيسة أو هدو خاتمه يا مامور بأو مغلبة استلم نرشي بوت كنعمل نكسوا مد ككلو حوي نين إيجانيا نين قبيل كيسة أما تجيب كيسة هدو كأركوايو حتى اللغة وفت ما لودرو حتى اللغة تشير من الخصوصة حتى اللغة تقول من المريس هدو نينك قلديسة موقف أديركس أما إن أديرك هدو كأركوايو أرانيا وحاسي وحبك ما السودان وحبك ما تجينا أرانيا أدير تتك ولا بدعنو ونينك هنقولك حاران تعدولي عيال كيسة بيك الربانتو إنه كبيرو iyo ninka doonaya eeganaya in adeerkiisa haduu soo ku jirin meesha ku jirin hadii waqti la dirayo haduu soo ku jirin hadii meel la marayo shir la qabanayo
in adeerka ku jirin eeganaya haddii uu ka maqan yahay ilaahay shirkaasi waxba kama jiraan cabbaas oo dadka dhulbahante ee aad maqlaysay khaatimo kasoo horjeeda waa dadka noocaasa haddii aan ku noqdo nimanka wasiiradii hore ahaa ee khaatimo ahaa ee madaxweynuhu ka eriyey madaxweynuhu isaga xaq u leh golaha wasiirada madaxweynaha magacaaba golaha wasiirada madaxweynaha eriya madaxweynaha ayaa kala doorta cidda shaqaynaysa iyo cidda shaqaynay madaxweynaha u taala nimanka uu madaxweynuhu eriyey ay way horta nimankan anigu saan u haystay aad sheegtay tiri nimanba dowladda hore ku jira wasiirada leeriye ku jiro dibadna khaatimo diiday waan arkay niman jabhad sheegtay nimanka jabhadda sheegtay been bay sheegayaan wax allaale iyo wax ka jira laascaanood baan xoreynanaa oo laascaanood baa la haystaa bay yidhaahdeen been bay sheegeen laascaanood haddii la xoreynayo oo laascaanood aan la xoreynayo 100 jeer baa la iclaamiyo li laascaanood aan xoreyno 100 jeer baa la sheegay cid keentay lacag iyo cid ciidan keentay midna ma jiro sida awgeed ayay nimankana haddana intay buuhooda isugu yimaadeen markii shaqadii laga eriyey oo ay la jaan qaadi waayeen dowladdii maamul goboleedka khaatimo iyo madaxweynaheedii iyo golihii wasiirada markii la jaan qaadi waayeen ee laga eriyey ayay yidhahdeen jabaddan ku dhawaaqanayna wax ka jira jabadoodaasi male qurba joogtooda shilin dambe u diri mayno waxaana awalba annaga wadnay jabhad jiraysa soomaaliyana ma jirto dambe waaba ceeb in jabhad maanta sheegto maamul goboleedka khaatimo ayaa dhulbahanta ku midaysan yahay dhulbahantana waa maamul goboleedka khaatimo ee madaxweynaha ugu sarreeya madaxweyne ku-xigeenka ku jiro golaha wasiiradaha golaha baarlamaanka intaasaan anagu dooranay intaasaa dhulbahanta matasha walaa jabhad meel maraysa walaa cid kaloo meel maraysa midna nama matasho anagu haddaan nahay shacabkii reer khaatimo waa hagaag waa mahadsantahay waxaa jirtay maamulka khaatimo waxaa lagu aasaasay deegaanka taleex 2012 waxaa maamulka khaatimo aasaasay golaha sare dhaqanka khaatimo 13 isim ee beesha deegaanka Soobsanaag cayn degta beesha dhulbahantay waxaa aasaasay maamulka khaatimo siyaasiyiin qurba joog aqoon-yahano aad ka mid tihiin qurba joogtiin ama saraakiisha hore Soomaaliya cid walba deegaanka soo horjeeda ama deegaanka dhalashaan ka soo jeeda ee aqoon-yahan waxaan ogsoonahay maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay shirar ay yeelanayeen golaha sare ee dhaqanka khaatimo ay ku yeelanayeen deegaanka higlada oo ay kaga soo horjeesteen gabi ahaanba wada hadalka Somaliland iyo khaatimo waxaa kaloo la sheegay in qaar ka mid ah ismadu ay wufuud reer Somaliland ka socda ay kula kulmeen deegaanka Laascaanood arrintaasi say isu waafaqaysaa maxaa ka aaminsan tahay adeer waad mahadsan tahay si fiican baad u dhigtay horta waa ku sheegay guud ahaan waxaan ku maamul goboleedka khaatimo waxaa lagu doortay taleex baana lagu dhamaystay hadduu oday dhaqan yahay hadduu dhalinyaro yahay hadduu gabdha yahay cid kasta oo reer khaatimo halkaasi horta ugu dhamaatay in maamul aynu samaysano kala dambayn iyo nidaam inoo matala hadday gudaha Soomaaliya noqotay hadday inaga gudaha noqotay hadday caalam noqotaba horta maamulkaas aynu dooranay odayaashuna iyo nimanka aad sheegaysidna waxay ka mid ahayn dadkii saxeexay taleex ku saxeexay wada dhismihii maamul goboleedka khaatimo kuna dhaartay halka horta nimankan halkaasay horta dadkeena la mid ahayn haddaan u soo noqdo sheekadan ama warkan ee ilaa shalay ilaa doraad soo baxayay niman garaada ayaa horta higlada meel ay tagay horta nimanka higlada tagay anigu garaad uma haysto anigu waxaan u haystaa niman dhintay oo aabayaashood garaad ahaayeen oo aabayaashood garaad dhulbahanto fiican ahaayeen iyo qaar walaala ahaayeen oo ka dhaxlay iyo kuwa aabayaashood ka dhaxay kuwa walaalada ka dhaxlay raggaas ilaahay u naxariisto niman fiican oo wanaagsan oo garaadada asliga ah ee dhulbahante ee bay ahaan waana dhinteen nimankan meeshana waa nimankii ka soo haray aniguna waxaan u haystaa bisad baan u haystaa Abbaaso bisada waa taqaana bisadu marba dhinac bay ka soo baxdaa intaana waxay raadinaysaa waxay cunto marba luuqna ka soo baxdaa mar luuqna ka soo baxaysa markay wax ka soo hesho meel bay la gasho way ku cuntaa markay wax dareys afarta koone marba luuq kaga imaanaysa anigu nimanka garaaduma haysta waxaan u haystaa garaadadii fiicnaa ee dhulbahante ee dhintay niman ay dhaleen baan u haystaa waxaan ku sheegay Abbaaso nimankaasi maanta waxay la mid tahay dagaal qadhaadh oo ay ku soo qaadeen maamul goboleedka khaatimo iyo shacabkii reer khaatimo niman ku soo qaaday weerar ayaan anigu haysta sababtoo weerarku kala duwan yahay weerarku waa mid xabada waa mid meediyaha waa mid lacaga wuu badan yahay dagaalku nimanka odayaasha ee higlada tagay ee bisada bisad baan u aqaana garaadna uma aqaano mana matalaan nimankaas waa niman ku soo qaaday maamul goboleedka khaatimo iyo shacabkiisii weerar ku soo qaaday
weeye horta nimankan waxaa horta saddex nooc ay u qaybsanayeen nimankan waa saddex nooc boohood ka yimaadeen kuwana waxay ka yimaadeen Garowe kuwana waxay ka yimaadeen Laascaanood saddexdaas horta ayay u qaybsamaan kuwii boohood ka yimi iyagoo leh maamul goboleedka Khaatumo iyo maamul goboleedka Somaliland baanu ka soo horjeednaa wada hadalkoodii ayaa intay soo socdeen ba waxay soo mareen Laascaanood iyo Laascaanood waxa haysta Somaliland ba haysata waxayna ku haysataa xoog bayna ku haysataa qof kastoo dhulbahantaa iyo Soomaali weyn iyo caalamka xitaa laftiisa ayay horta soo mareen waxa laga wada hadlayo maamul goboleedka Khaatumo iyo maamul goboleedka Somaliland ka wada hadlayeen waxay ahayd heshiis looga saaray ciidamada iyo dhulka la haysto ayay ahayd meeshii la hawa la haysta ayay soo mareen halka markay soo mareen waxay la kulmeen ninkii hore isu dhiibay ina Garaad Ismaaciil dhalay ilaahay ha u naxariistee isagu garaadkii dhulbahanta isagoo habeen madow ka degay Djibouti maalintii ku xigtayna Hargeysa calanka Soomaaliland qoorta ku xidhay si uu soo socdayna Laascaanood la keenay baabur galbinayso ninkaas oo isagu hore is dhiibay oo qof walba dhulbahantay ana ku xadgudbaynin is dhiibay ayay horta kuwii boohood oo weligood dhuumanayay oo marba dhinac galayay oo marba suuqa ka baxay oo been sheegayay ayaa waxay yimaadeen magaalada Laascaanood halka waxay kula kulmeen golihii wasiirada ee Somaliland oo faratoon ugu sareeyo iyo ninka ina Garaad Jaamac odayga khayrka qabay dhintay dhalay hadda aan garaadka ahayn ee is dhiibay bay kula kulmeen halka marka lagu kulmay wixii lacaga iyo wixii kharash lagu kala qaatay markii lagu kala qaatayna waxa halka kula goday kuwa wasiir sheegta oo reer Khaatumo u dhashay oo caloosha u shaqaystayaal oo Somaliland ka tirsan ay halka kula shiray anigu kuma dambaabi karo in maamul goboleedka Somaliland madaxweyne Siinaayo inuu ka shiray kale anigu kuma dambaabayo oo aan halka khiyaano ku jiro kuma dambaabayo laakiin waxa cad oo la hubaa inay halka kula shireen maamulka Somaliland nimanka caloosha u shaqaystayaasha halkaas in laga soo abaabulay laga soo kharashsiiyay laga soo nidaamiyay shida loogu soo shubay uurka loogu soo bixiyay dabadna la yili higlada oo ay hadda ka dhigteen taliska guud ee lagaga baabi'iyo lagaga weeraro maamul goboleedka Khaatumo iyo shacabka reer Khaatumo lagaga weeraro meesha higlada la yiraahdo oo ninka Cabdisalaam la yiraahdo uu dhufays ka dhigtay qalcad uu ka samaystay qalcad uu ku dhufays iyagoo u dhuukinaya ama difaac ugu jira sidii ugu xumayn lahayn halka dhulbaante halkaas isugu tageen iyadoo lacagta la soo qaatay beerka la isugu tagay waan arkaysay been kama sheegayno halkaasay fadhiisteen qayb waa qaybtii kale Garowe ka soo dhaqaajiyeen markay ka soo qasay isugu yimaadeen kuwa Garowe joogay iyo kuwa Hargeysa jooga kuwan waxa leeyahay hadda ka yimi Laascaanood ka yimi shuraako iyo saaxiib waxay ku yihiin xumaanta dhulbahante iyo dagaalka dhulbahante ayay ugu jiraan ayay saaxiib ku yihiin laba bilood ka hor kuwa boohna ka yimi waxay joogeen magaalada leeyahay Garowe Puntland bay joogeen oo ay beer iyo kalluun iyo hilib gel ku cunayeen iyo dhiig dhulbahante saa u shaqeeya saasay u shaqeeyeen oo ay leeyihiin Puntland baynu dhahay bay saa u shaqeeyeen haddana waatan bil ka horna Garowe joogeen kuwa boohoodle haddana waxay joogaan higlada bay isugu yimaadeen waa niman bahaloobay garaadana maaha aabayaashoodana adar garaadaha wax garaad la yiraahdo halka joogaana ma jiro nimankaas higlada waan dhageystay anigu Cabdisalaam ninka la yiraahdo waan dhageystay hadalkiisa markay wiilku wareysanayay wuxuu afkiisa soo marin waayay oo la weydiiyay war ma aaminsantiin maamul goboleedka Khaatumo aaminsantiin afkiisa wuxuu soo marin waayay waan aaminsanahay maamul goboleedka Khaatumo laakiin waxaan diidan isna ma oranin wuu ka warwareegay markaas markii ugu dambeysay dadka dhan baa Khaatumo dadka dhan ayaa Khaatumo ay yiri warninku nin weyn xishoonaya miyuu sanayn warninku weyn wax isku falaya miyuu sanayn miyuu sanarkaynin Khaatumo inay ummadan oo dhulbahanti eeganayso oo ay maamulkoodii tahay oo guda iyo dabadba ay joogaan miyaanu arkaynin iyaga isaga iyo kuwa la fadhiya miyayna arkaynin in masayr ummadan iyo magac ummadan ay eeganayso nimanku ciyaaraya uma muuqato adeer marka hadda ku soo gaabiyo nimankaasi waa bisad weey bisad doonayso waxay cunto Somaliland iyo Puntland labaduba waxay rabaan inay lacag ka qaataan waxay rabaan inay dhulbahante Puntland iyo Somaliland colaadeeda dhexdooda intay halka lacag ka
puntland lacag ka soo qaatanayaan dhulbahanta matala marna xagga hargeysa ka soo qaatan lacag dhulbahanta matala dhulbahantana oo uu jahayo jahdiid noqdo oo dhulbahanta uu noqdo reer halka dhex iska taagan oo aan khayr iyo sharaf iyo wanaag iyo midnaba lahayn sidaasay dhiigga dhulbahanta ugu cunaan 20 sano adeer Cabbaas ku sheegay 20 sano ayay nimanka garaadada sheeganaya ee nimankii hore khayrka qabay ay dhaleen ee hadda aan garaadada hayna beenta 20 sano ayay dadka dhulbahanta ku baabiyo dhiigooda cabayeen waxa marila oo ka daadagila oo marnaba dhagahooda ka qaylinaya oo guryahooda saxan waayeen waxa u muuqata haddii maamul khaatimo la yimaado risaqada wada ka gooday inna wali 20 sano dhiig dhulbahanta cabayeen barnaamijka ama mushkiladda meesha taala ee nimankani marba meel u tagayaan waxa weeye 20 sano ayay cidla ku haysteen dhulbahanta 20 sano garowga xisaaxiyeen 20 sano hargeysa isi socodayeen oo lacag ku qaadanayeen markay khaatimo samaysatay waxaba maskaxdooda gashay inay barsaqad beeraynin haddii dhulbahanta nidaam yeesho marka nimanka Cabbaasow waa niman ku koray calooshi ku weynaatay ku barwaaqoobay dhiigga dhulbahanta weeye wayna caddahay beena kala sheegayo eeg Cabbaasade ama dhulbahanta ay dhageysanayaba nimankan maxaa loo doortay nimanka waxa loo doortay oo oday dhaqameed loogu doortay inay dadka bulshada ee reer Khaatumo ee isdila ee wax kala gaaraan dhexdooda inay kala celiyaan u xaq sooraan baa loo doortay wax siyaasad la yiraahdo iyo wax caalam la yiraahdo iyo wax international community la yiraahdo minna shaqo kuma leh waa la marin waayay nimankaas waxa ku tusay Cabbaas inaan bee sheegin shaqadoodii waxay taalaa Soomaaliya sanadii cayn xidhxidh iyo wirwid iyo kala bayd iyo dabataag iyo dhakeegeeyo ayaa hawshoodii taalaa 3 bilood ayaa waxay fadhiyeen meesha la yiraahdo dhumay 3 bilood oo dhumay fadhiyeen 3 bilood say u fadhiyeen labadii reer ee dhulbahanta ee shaqadooda ahayd wax allaale iyo waxa ay qabtaan inay isku diraan ma ahan jiro halkaas hilib ku cunayeen hilib bay halka ku shaqeeyeen halkaas shaah ku cabayeen say u fadhiyeen ayaa caynaba waxay maqleen dhulbahanta Khaatumo iyo waxa shalay Soomaaliya waa caynaba mar allaale iyo markay maqleen waad ogeydeen markaas ay baaq soo saareen oo TV-yadu yeedheen oo saas soo tubeen oo yiraahdeen waa ka soo horjeedna balbaxa ka galay maamul goboleed ayaa maamul goboleed la hadlaya aqoon-yahaniin ayaa aqoon-yahana la hadlaya professoro ayaa professoro la hadlaya wasiiro ayaa wasiiro la hadlaya bal oday dhaqameedo aynaba madhiig baa lagaga hadlay aynaba geel iyo ari lagaga hadlay oday dhaqameedo meesha la yiraahdo sababa dhiig iyo qabiil la kala celinayo iyo reer la kala celinayo iyo marka la kala bixinayo minna lagaga hadlay waxa lagaga hadlayay arrin siyaasadeed oo aqoon heer professor iyo hor wasiir iyo hor baarlamaan ayaa lagaga hadlayay arrin ay fahmi karaan iyo arrin ay wax ka garanayaan minna malaha waa niman iska soo orday waa niman waxna akhriyo waxna qorin aniga si la sheegay inta badan waxa ma qoreen bali halkaas ay joogeen markay aabayaasho dinteen ba darajo aanu qaadi karo loo fiirsan ayaa dhakada laga saaray waa bad arkaysa waa cadda bal u fiirso Cabbaas wadana soo gaabinaya u fiirso maba ogalaba dadka dhulbahanta dhexdiisa intaas oo dhulbahanta dhexdiisa oo arrimood ayaa imika dhulbahanta dhexdiisa ka taagan oo shaqadoodii ma ogola hadday arkaan maamulkii Khaatumo oo meel maraya tooba la oranaya markaas TV-ga loo yeelanaya ceebta kale haysata bal oday dhaqameed maalin walba maamulkiisa ka soo horjeeda ama aqoon-yahankooda ka soo horjeeda oo oday dhaqameed Soomaaliyeed oo nimanka dhulbahanta ee garaadada hore aabayaasho garaadada hore ahaayeen bal u fiirsada idinku marnaba arki maysid oday Soomaaliyeed oday dhaqana oo maamulkiisii ku soo taagan oo saa ugu soo taagan arki maysid aan nimankaas garaadada aabayaasho garaadada ahaayeen cidaan arki maysid ceebta haysata isma ogaa nimankan waxa ka codsanayaa dadkii garaadada u magacawday ee garaadada saartay baa waxa ka codsanaya inay u sheegaan waa haday maqlayaan anigu malayn maayo inay maqlayaan shacabkii reer Khaatumo ee garaadada waa u malayn maayo inay maqlayaan waxa ka codsanaya war nimankan xishooda dheh TV-ga soo saadooda siyaasiyiinta ee TV-ga aan ahayn maryaha dhigta tay soo xidha soo diyaar garooba siyaasadda ku soo biira war raganimo laakiin oday dhaqameed baan ceeb weeye waxa weeye karaamada iska qaadeen sharafnimada iska waxa dhulbaante ana ugu horeeya magacayga baad sheegtay iska dhulbaante aniga magacayga baad sheegtay aniga magacayga higlada waxba kuma sameyn kartid
aniga magacayga hilada cid xukuma sheegtay aniga magacayga ana iskale waxana ay xukuma maamul goboleedka Khaatuma State Soomaaliya madaxweyne Barasal Cali Khaliif iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaale anoo maamul leh maxaa odayro miskiina oo gandheer maxaa laga sheegay Cabaaso marka nimanka hadalkooda halkaasanu kaga haraynaa wax jira maaha waana qarxeen waa kaar qarxay weeye sharaf dambe iyo karaamad dambe ay leeyihiin male hal mid baan anigu sugaya labadii garaad ee dhulbahante ugu waaweynaa garaad jaamac garaad cali iyo garaad Saleebaan ayaan anigu sugaya inay baaq ka soo saaraan nimanka higlada waxaan idinka codsanayaa garaad jaamac garaad cali iyo garaad Saleebaan inay nimanka higlada ah ee qowlaysatada ah ee bisada ah inay ka soo saaraan baaq oo ku laada iyaga garaadada saxa ah iyaga garaadada dhulbahante ah iyaga wax garada anigu labada garaad baan sugaya waxaana aad uga xumahay anigu markaan arkay qoraalkoodii iyo saxiixoodii iyo warqadda ay qoraayeen kuma arag garaad Saleebaan laakiin waxaan aad uga xumahay oo raba inuu degdeg uga jawaabo garaad jaamac garaad cali garaadkii guud ee dhulbahante oo inta magacooda qortay yiraahdeen wakiilkii garaad jaamac garaad cali wakiilkii oo ah hebel buraalamiya wax saasa ma baqaanba war ma garaad jaamac waa nool yahay jooga garaad Saleebaan waa jooga cid ma tiri kartaan male waxaan codsanayaa labada garaad oo labada garaad dhulbahante ugu weyn ugu sharafta ugu karamada badnaa inay nimanka higlada iska warsaday qowlaysatada ee aabayaashood garaadadii fiicnaa subana ah ilaa u dhaxdhisay aabayaashoodi nimankaas inay meel kaga soo haraadeen baan anigu dhulbahante waxaan ka codsanayaa garaad jaamac iyo garaad Saleebaan waa mahadsan tahay waxaanu ku soo laabananaa dhankii wada hadalka Khaatuma iyo Somaliland Axmed Gedle waxaa tahay dad rogcada siyaasi janarada ciidamadii hore xooga dalka Soomaaliya waa kamid ahayd Khaatuma waxay ku doodaysay wada hadal Somaliland inay isla furayeen hadda ka hor ilaa dadka deegaanka ama deegaanka Soomaaliya ay guud ahaan ka baxaan ciidamada Somaliland maanta baahida keentay Khaatuma State of Somalia Somaliland wada hadal la furto maxay tahay waa hadal fiican adeer waxa soo dedejay in Somaliland maanta ay Khaatuma State Khaatuma inay maanta aqoonsato Somaliland waxa weeye iyada lafteedii ayaa soo taabatay sagxadda soo taabatay markii adduunka aqoonsan waayay guri walba iyo darbi walba iyo daaqad iyo albaab kasta garacday waxba markay soo waayeen oo Soomaalida lafteedii iyo meesha xamar dooran jiray koonfurta ay arkeen cirkayna marayso iyaga laftoodii ayaa hoos u dhacay sida awgeed ee aan kula hadlay ayaa waxay noqotay in lagu khasbo ama cadaas lagu saaray inay Soomaalidooda ku noqdaan Soomaalida raacaan sida awgeed waxa keentay inay maanta Khaatuma aqoonsadaan oo sida awgeed maanta Khaatuma iyo Somaliland wada hadlayaan aad baan u soo dhaweynayna in maamul goboleedka Khaatuma iyo maamul goboleedka Somaliland ay wada hadal bilaabaan iyagoo isku reeqooyiya inay bilaabaan in ay ciidamada Somaliland ay jooga Soomaaliya sanaga sida qodobada ku jirtay inta laga fiirsado la eego nabadgelyada meesha in laga saaro in international community iyo caawimaadii Khaatuma Soomaaliya sanaga Khaatuma caawimadeeda la keeno in dadku nabad iyo sharaf iyo karaamo lagu wada noolaado Somaliland iyo Soomaaliya Khaatuma State in ku wada noolaadaan halkaas adigu aan arkaa waji fiican iyo nidaam fiican baan arkaa reer Khaatuma waxaan u rajaynayaa hal la taageero nidaamkaas ruuc cadaaba hogaaminaya aan lacag rabin Ali Khaliif lacag mar rabo hadaa doonaysid marba luuqiyo xogaa lagu siiyo hadaa doonaysid Somaliland iyo Puntland in la gurusta ku siiso Ali Khaliif la gurusta lama rabo lacagna ma rabo waa professor prime minister ki Soomaaliya oo noqday adduun uu soo maray wuxuu rabaa maanta inuu dhulbahante meel kaga soo haro isagoo meel fiican dhigay Ali Khaliif inuu diyaar ka raaco oo dhulka Ilaahay aado Ali saas uu jooga buuqoode marka waxa weey aad iyo aad soo dhaweynayna wada hadalkaas Cabaaso Somaliland iyo Khaatuma waa maasantahay koob iyo toban qodob baa laga soo saaray wada hadalka wajigii labaad ku soo gogoway dalkan Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa Soomaalida ama warbaahinta Soomaalida ama dadka reer Khaatuma waxay aad iyo aad u falanqeeyeen qodobka lixaad oo ah in ciidamada Somaliland joogitaanka Sool Sanaaga Cayn ama maamulka Khaatuma deegaankooda in dib loo qorsheeyo qodobkaasi wuxuu u baahan yahay ama dadka reer Khaatuma ay siyaabo badan bay u turjumeen qodobkaasi absolutely koob iyo tobanka qodobba waa qodobo aad u fiican laakiin yaa fahmi kara de waxa fahmi kara qofka Khaatumaysan ama Khaatumada saxa ama dhulbahantada saxa ayaa koob iyo tobanka qodob ninkaas fahmi kara koob iyo tobanka qodob nin walba oo dhuuri qaata inta xun dhulbahante sida iyagu raanba u turjunteen waxa weeye
koob iyo tobankaa qodob waxa si fiican u fahmi kara ninka garanaya laba nidaam ama laba maamul oo wada hadlay qodobaday soo saareen ayaa fahmi kara ma fahmi karo nin Hargeysa shilimaan ka qaata oo xogaya ka qaata ma fahmi karo sababtoo ah isaga risaqadiisi wuxuu moodayaa haddii la heshiiyo in risaqadiisi meesha ka baxdo garaad dhulbahantana ma fahmi karo wada qodob mid Puntland jooga ma fahmi karo waxa weeye labada qodobba meel fiican baa la dhigay qodobkana ciidamada la saaraya ciidamada waa la sheegay ciidamada Somaliland waxay haystaan laascaanood iyo dhowrtuula haystaan laascaanood ciidanka jooga haddii xun yahay haddii wanaagsan yahay waa maamul ila xad waa dadku kala celiya tuugu soo qabta maxkamad buu leeyahay system baa jira laakiin ciidan iska qaad hal mar baan ciidan iska qaadaya haddaad ciidan iska qaado maxaa dhalanaya waxa dhalanaya dadka deegaanku inay isdilaan in la isbiliqaysto in la isdilo in magaalada la socdo dhexdeeda la isku togto ayaa dhacaysa aadar waxa weeye qodobkaasi waa qodob taxadar leh wuxuuna ku beesan aqoon iyo cilmi ku beeskaraysanaya waxayna noqonaysaa haddii ciidanka soo baxayaan in maamul goboleedka Khaatumo oo ciidankii la wareegi lahaa meelaha Somaliland ka baxayso ciidankii Khaatumo la wareegi lahaa in Khaatumo haysato iska bax hanaga baxaan wayna haystaan aadar afmaa waxa weeye anigu fahmaya ciidan oo aan soo maray ciidan baa meel ka baxaya ciidanku hadday tahay meel cidla ah oo ciidan uu face kaga jiray ciidanku ka baxa caadi uga baxa laakiin ciidanku hadduu ahaa ciidan magaalo iyo dhul iyo dad kala celinayay oo dadku kala dhex jiray ciidankaas lama yiraahdo isla sidoo u tagaa iska baxo waayo haddii ciidanku magaalo iyo dad uu ilaalinayay hadduu iska baxo waa inaad caqli ma waa inaad bedelkeeda keentaa oo meesha ciidanka ka baxaya waa inay ahaataa ciidan kale waa inuu bedelaa haddii magaalada laascaanood ciidanka Somaliland jooga hadduu ka baxayo waa in la helaa ciidankii reer Khaatumo ee la wareegi lahaa ee nabadgelyada sugi lahaa caqliga bini'aadamka ina odhanaya laascaanood ciidanka Somaliland hadduu ka baxayo waa in ciidan Khaatumo ah oo militarigii iyo booliiskii iyo nabad sugidii iyo asluubtii jeerasha intaba waa inuu leeyahay haddii iska baxaan dadka dilaya soo qabanaya yaa soo qabanaya gabdhaha kufsanaya yaa soo qabanaya kaxbada dadka la dhacaya yaa soo qabanaya ilaa hadda way noognahay ama raalli ka aho ama ha ka ahaanin maamul baa ka jira laascaanood ama raalli ka aho ama ha ka ahaan waa maamul islaamka ogolayn maamul la'aan islaamku ma ogola meel cidla ah islaamku waxa lamaba ogola in meel cidla iska noqoto waayo waxa ka xun dhibaatada dhacaysa maamul xumida waxa ka xun dhibaatada dhacaysa ka xun marka caqligu wuxuu odhanaya maalinta Somaliland ay noqoto inay baxdo Soomaaliya sanaag maamul goboleedka Khaatumo isaga ayaa soo diyaarinaya ciidamadii la wareegi lahaa goobaha ay ka baxdo Somaliland ciidamadii la wareegi lahaa maamul goboleedka Khaatumo ayaa soo diyaarinaya hadday noqoto ciidanka jeerasha asluubta hadday noqoto booliiskii hadday noqoto traafikadii hadday ciidanka korka ilaalinaya ciidanka militariga noqoto dhulba isaga maamul goboleedka Khaatumo soo qorsheynaya laascaanood sidaas si tartiiba oo maamulka Soomaaliya Khaatumo la wareegi doonta nidaam baa jira ciidan meel magaalo markuu ka baxayo waa in si tartiiba ciidan kale uu kala wareega hadda Soomaaliya ciidanka koonfurta oo dhan amisom baa joogta ka warraaw hadii la ama Soomaaliya bir baxaysa waa la isdubanaya laakiin caqli saama ciidanka amisom lafteeda xamar iyo koonfurta markay baxayaan hal maalin ma baxayaan si tartiiba maalin walba goob ayaa lagala wareegaya sidaas ayaa markaa hawsha ku dhameystirmaysa ciidamadaasuna ku wada baxayaan kuwa dambana ay ku wareegayaan marka magaalada laascaanood waxa weeye waxa lagula wareegaya si tartiiba maalinta ay timaado in maamul goboleedka Somaliland uu ka baxo si toos ah Khaatumo ula wareegsa laakiin iska bax hanaga baxdo caqli ma ninka saa ku talinayana wuxuu rabaa in dhulbahanta dhexdiisa laamigii dheeraa ee isku xidhayay in la isku dilo ninkaas saas ka talinaya wahagaag waxaad sheegtay inaad tihiin maamulka Khaatumo state of Somalia uu dhashay deegaanka Sool Sanaag Cayn maamulka Somaliland sidoo kale sano wuxuu sheeganaya xukuumaddu sheeganaya qaabsee u wada hadlayseen maamulka waxa wada hadlayseen sidii laba beerood ama mise laba maamul si wada hadlayseen labadina adeer waxa weeye laba nooc bay tahay waa runta mar waa si madaxdeena noo sheegtay madaxdeena noo qaabilsan annaga maamulka madax baanu dooranay madaxda waa inaan waxaynu annagu noo sheegtay ama noo soo bandhigtay baan annagu aan dhageysan marna waxa weeye wax live annagu baan live indhaha ku aragnayba maamul goboleedka Khaatumo ilaa maanta Caynaba ilaa iyo maanta Arda Sababa maamulka Khaatumo
mar hore iyo mar dambaba uu soo bandhigay maamulka khaatimo wuxuu qariyay male wahaduu ninka dhulbaanta ama ninka reer khaatimo iimaan leeyahay oo rasuul leeyahay uu yahay waa caddahay weeye qaar baa yidhaahda waxba nalama sheegin sidii kuwii higlada ka hadlayay waxba nalama ogeysin kadaab weeye maxaa lagu ogeysin caynaba waa la soo bandhigay maamul goboleedka khaatimo caynaba uu soo bandhigay hadda ay soo noqdeen way soo bandhigay 11 haddana weli wacdigelinta dabad iyo gudaba waa la socotaa adeer waxa weeye si toosa ayaa warka khaatimo u cadiyaaday labada hoggaan waa gudoomiyaha baarlamaanka khaatimo maxamuud sheekh cumar iyo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Sacad Cali Shire وفودي لبدا قرب لبدا maamul hogaaminaysa waxay labada warbaahinta u sheegeen inay u wada hadleen ama khaatimo iyo Somaliland halka Sacad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda Somaliland uu sheegay in ay u wada hadleen Somaliland darnimo meesha ay ka wada hadleen iyo xandab Somaliland uusan ka jirin maamulka arintaasi miyaa la oran karin Somaliland darnimo ku hadlaysa may adeer waxa ku sheegay horta meesha Somaliland dadka 20 sano ayuu gooni lagu akhriyay 20 sano dawlad banu nahay baa lagu akhriyay 20 sano waxa lagu akhriyay wadanka Soomaaliya warka goosan sidaas oo lagu akhriyay marka dadka xagga joogo dhan ee Somaliland ee saqa waxa ku wada jira yar iyo qaar baa dhashay dawlad Soomaaliyeed baa waxay dhasheen iyadoo la leeyahay dawlad banu Somaliland baa calankeena uga dhashay maanta kelmadda ninka isaaq ee wasiirka sheegay oo ku hadlaba wiil yar oo 20 sano jiray oo qaran Soomaaliyeed iyo nidaam Soomaaliyeed iyo nidaam midna ma garanayna oo kaliya maqlay waynu goosan iyo dawlad banu nahay ayaa waxa dhibaya hadalka wasiirka Somaliland haduu sida tahay wuxuu sheego wiilka yar baa bari qaylinaya anigu waxaan u haystaa gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka khaatimo ayaa run sheegay maamulka khaatimo ayaa run sheegay dadka maamulka dadka dhulbaxantana wadadka masiikan waa dad aan beenta sheegin si fiican oo daacada oo wanaagsan ayay u sheegeen sidii ay kula soo kulmeen Somaliland iyo Artasaba sida heedan u sheegeen beena kama sheegayo ninkan wasiirka arrimaha dibadda ee Sacad Cali Shire kadaab weeye been buu sheegay waxaas waxaan u leeyahay saddex waraysi ayaan dhageystay anigu mar soo English ku hadlaya markuu joogay Artasaba ee wariyaha Ethioopiyaanka English ku hadlayay ee yarkii wiilka dhulbaante ee Mareykanka ka yimid waftiga qaybta ka ah ee isagu ay shirka conference ay qabteen waraysiga ah ninka English ku hadlayay iyo mar laba saddex boo dhageystay intaba wuxuu sheegay inay wada hadlayaan maamul goboleed khaatimo iyo Somaliland inaan wada hadlaynin maamul iyo Somaliland iyo qabiil la yiraahdo Soomaaliya gacan inaan wada hadlaynin ayuu sheegay intaba uu sheegay markuu hargeysa yimi Somaliland bikoodi waa been weeye wuxuu ku qancinayay dadkiisa shacabka ah ee jooga hargeysa iyo burco jooga ee konta ka sano ku akhriyay 20 ka sano ku akhriyay dawlad baynaay ayuu si shinidu ka baqeen ku ugu degeen marka taasoo ka baqayaadeen taladuna in Cali Shire iyo ninka kaasna kama goodo waxa ka gooda meesha maamul baa jira madaxweyne leeyahay golo wasiir golo baarlamaan bay leedahay anigu ninka aad sheegaysa wasiirka iska hadlay ka soo qaafay markaan dhageystay waagaag Somaliland muddo 25 sano waxay lahayd gooni baan isu taagnay dawlad xukuumad kamid ah dawladaha geeska Afrika yar kamid ah khaatumana muddo 4 sano على ركرة وحينا ودجالنا مسامة ودبنسي من دماغ الصومالية Somaliland وحي لهذه حكومة كقضاء دولة الناحية الصومالية مركب يا صومالي يا من دماغ الصومالي نماذج تناسل ميديك تناسل مسيء يجا تناسل ماشي أنا أدير هرت وحوي لك مركب أكسبل السوقي لقى جماعة هاللينين دولة Somaliland يدولة كونفورتا من اللي جمالين واحد كونفور Somaliland الدولة اللي جاها اللي بتشوف دت سول يسناق عين maamul goboleed khaatimo la yiraahdo oo ay samaysteen iyo Somaliland reer isaaq oo hore u samaystay oo isku deegaan dad oo reewqooyi la isku yiraahdo ayaa meeshkooda hadlay nimanka meesha kooda hadlaya waa niman reewqooyiya qabiilka doonta adigu dheh waa niman reewqooyi oo waqooyiga Soomaaliyeed waqooyiga Soomaaliya ka yimi ayaa meeshkooda hadlay sidaas ay ahayd haddaad maamul u dhigaysan waa Somaliland iyo maamul goboleedka khaatimo haddaan qabiil ka dhigayso way saaqay dhulbaante waxa meesha ku wada hadlayay waa nimanka reer waqooyiga ee saaqay dhulbaante wajiga dadooya waa sida waxa inta dhaafsisan ma jiro wax kala go'ayana ma jiraan dad kala go'ayana ma jiro iyaguna way og yihiin marka waxaas oo dhan waxa lagu qanciyaa iyaguna waxay ku qanciyaan waan goosana wiilasha yar 20 sano wax lagu akhriyay innagana waxa weeye
daacad baynu ka sheegno inagu de inagu dhulbahanto maamul goboleedka khaatumo beenba kamayna sheegin adeer marka waxa weeye xaalku waa sidaas wey waagaag ma laga yaaba inaad ka mid noqotaan xukuumadda somaliland maamulka khaatumo ma laga yaaba inuu ku biiro aad isku noqotaan dalku sida hore wuxuu ahaan jiray waqooyi koonfur idinkuna waxaad ka mid tihiin xaydaanka waqooyi ma laga yaabaa maamulka uu hogaamiyo doctor galeed madaxweynaha khaatumo inaad ku biirtaan maamulka somaliland waa hadal fiican horta waxa weeye somaliland dastuur bay samaysatay waxay tiri waxaanu gooy sagaashanka waanu goonay dowlad baanu nahay golo baarlamaan golo wasiir baanu samaysanay 22 sano 26 sano ilaa 22 sano ayaanu dowlad ahayn somaliland saasay dastuur bay qoratay aniguna dhowr sano ayaan dowlad ahay waxaan ahay maamul goboleedka khaatumo sida soomaaliya ahay dastuur baan samaystay waxaan ka mid ahay qarankii soomaaliyeed iyo ummadii soomaaliyeed iyo soomaali weyn ayaan ka mid ahay ba dastuurkayga u qoran halka arag waa laba dastuur midna wuxuu leeyahay waaban goostay dastuur baa u dhigaya ka khaatumana wuxuu dhigayaa annagu waxaan nahay soomaali weyn go-diinta meesha kuma jiro soomaaliwan baanu nahay dadka soomaaliyeed baanu nahay maamul goboleedka khaatumo la yihahda gobolada soomaaliya ee federaalka rasamaniya qayb ka mid aanu nahay horta labadaasay taaganta ku biiristaa timi somaliland hadday ka taanaasulaysa qodobada u qoran ee ah waxa la yihahda goosasho kelmadda goosasho markay ka tanaasulaan ee ay ku soo noqdaan xaydaabka soomaalinimo soomaali weyihiin mana go-in laakiin warqadda meesha ku qoran dastuurka waxa ku qoran hadday ku soo noqdaan xaydaabka ah war soomaali baanu nahay maamul goboleed somaliland soomaali baanu ka mid nahay hadday diyaar u yihiin waanu isku noqon karaa reer waqooyi caadiya oo la tartami kara ama la dhiirgarayn kara ama xaqoodu doonan kara koonfurta aniguna waan aaminsanahay waxaan aaminsanahay in waqooyi waxay leeyahay inta layska dhigo wax kaloo halkan dowlad baana iyo waan goostay waxaasoo dhan waa dhamaatay inay inta ku soo noqdaan nidaamkaas inay soo waqooyi intuu midoobo oo dadkii reer waqooyiga loola jeeday midoobaan inay u midoobaan meeshan koonfurta ah ee iyaduna carqalada kale nagu noqotay in ay loo midoobo waqooyi anigagana aaminsan kudarsiga dee kudarsiga haddaad ka wado hadday ka noqdaan goosashadii oo ay noqdaan reer waqooyi caadiya oo innaga iyo iyaguban reer waqooyi isku noqono oo aynu xaqeennii iyo waxaan xaq u lahayn koonfur doonano anigu saasaan aaminsanahay laakiin ma aaminsani anuu khaatumo ah baan somaliland ku biiraya oo dee maxaan ugu biiraya iyaguna waa isaaq ana dhulbahantaan ma dhulbahantaan ka taga isan isaaq ku biira iyaguba ma ogola isaaq intay kasoo cararaan inay dhulbahanto kusoo biiraan hadday isaaq kasoo cararo dhulbahanto kusoo biir ma ogola marka waxa weeye qabiil ku biiraya ma jiro qiimana ma samay qabiil ku biiray muxuu qiimo samayn waxa qiimo soo kordhinaya ma jirto meesha qabiil ku biiri maayo nimankaasi hadday doonayaan in meesha koonfur in xaqii waqooyi loo wada doonto waa inay u soo diyaar garoobaan waqooyi wax la yidhaahdo si xaqii waqooyi loo raadiyo koonfur loogu raadiyo haddii kale weligoodba iyaguna halkaasi dowlad ka sheeganaya weligii anna halkaasa dowlad ka sheeganaya isku reer waqooyina waana koonfurna dhiiggeena jaqisa adeer waa sidaas sababtaad maamulka puntland oo aad waxaa la dhisatay 98kii sababtaad ula hadli weydeen maxay tahay oo aad somaliland ula hadashay waa hadal fiican adeer su-aashu waxay tahay maxaad puntland ula hadli weydeeno somaliland ula hadasheen adeer puntland waxa weeye dee iyadaaba diiday nala hadlaba dee iyadiibaba waxaa diiday inay nalaba hadashayba diidayba nin adeer kuba diiday inuu kula hadlaba dee anigu maxaa bay dhahaa dee iyagaba diidayba dee kun jeer madaxweynaha kun jeer buu sheegay iyo maamulka khaatumo kun jeer bay isku dayeen inay xidhiir fiican oo laba maamul oo walaalaa oo darisa kun jeer bay dabceen la xidhiidhaan nimankaasi waa la soo marin waayey waxa ka daadega weyday dhulbahantaa maamul samaystay dhulbahante baa maamul samaystay reer puntland waa liqi weyday kelmadaas ayaa markaa dhacday markii liqi weyday baan anaguna xarigga ugu jarray sidaasaan anaguna uga tagnay sidaasaan anagu ugu baxnay wax puntland leeyahay oon shaqo ku leenahay male iyadiibaba lafaheeda u liidataa waa qorax sii dhacaysaba waxbaba markaa adeer marka waxa weeye dee qofku diiday adeer hadalka gabagabadiisa ninku diiday war ila hadal haddaan ku idhaho imika waad ila hadli weydo oo nin kale halkaa maraya aad la hadasho oo kula hadlo dee kaasaad la hadlaysaa waa sidaa adeer waagaan wadahadalka somaliland khaatumaynu soo laabananaa dantaad idinku ka leedihiin ama aad filaysaan inay kasoo bixi doonaan maxay tahay wadahadalka khaatumo iyo somaliland adeer waxa weeye anagu su-aashu waxa weeye maxaad ka faa'iidaysaan maamul goboleedka somaliland iyo maamul goboleedka khaatumo wadahadalkooda maxaa laga faa'iidaya su-aashu saa hadday tahay wax badan baa laga faa'iidaya adeer waxa weeye meeshaan waad ogtahay waqooyi meesha la odhan jiray dadka waqooyi meesha colaad xun baa dhex taalla dhulbahante iyo saaq colaad baa dhex taalla
markaan laga eegin ninka horgalaha ee bariiska qaadanaya ee ka dhigaya ama u tusaya ama ay u muuqato in dhulbahanta meesha joogo may saade bulshadii dhulbahante ee reer Khaatumo ee dabad iyo gudaba ahayd colaad isaaq ayaa ku jirta colaad isaaq ha ka eegin ina xabadi socon xabadi haddana socda keenin colaadii waa socota iyadoo qoraan ay socotaa iyadoo cadha ay socotaa iyadoo si kastaba cadhadii ku bees karaysa ama ku jeeda isaaq way socotaade waxa weeye halka waxa laga faa'iidaya ummadda reer waqooyiga ee Burco iyo Hargeysa iyo Berbera degta iyo Soomaaliya sanaag iyo Cayn dadka shacabka ee masaakiinta ee dhulka Ilaahay ku wada beeray in la dejiyo oo nabadgelyo lagu dhawaaqo oo halkaas ay maartay si fiican wada noolaadaan ujeedada laga leeyahay hadalwasa ciidamada Soomaaliland ee duulaanka soo qaaday ee mooday markii hore inay power ay dhulbaanta ku qabsan karaan inay leeyihiin damcay ee dhulkii joogeen ee caasimada ku haystaan adeer waxa weeye ciidankaasina waa inuu ka baxo markuu ka baxo dhulkiisa tago annaguna dhulkayga la wareegno sidaas nabadgelyo ku imaanaysa sidaas ay ku imaanaysa wada noolaansho adeer waa sida ujeedada laga leeyahay barwaaqa soo socota hadii Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo Soomaaliland heshiya barwaaqa la heliyaa hadday noqoto mid reer waqooyinimo oo koonfura hadday noqoto mid dadka laftiisu noolaanaya oo maskaxda iyo caqliga ay ka baxayso xumaantooda waagan gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa su-aasha ugu dambaysa ku weydiinayo maxaad u sheegaysaa ummadda ku daawanaysa ee ka daawanaysa telefishinka caalamiga waa Bari TV xaruntiisa magaalada Gothenburg ee ummadda reer Khaatumo gabagabadii barnaamijka maxaad ugu soo jeedinaysaa adeer waxa weeye dhulbahante waa ducaynaya dhulbahante ilaahay waxaan ka baryaya daciifnimada reer kale hay xukumo nin kale oo reer kale ama majeerteena ama isaaqa wasiir haysiyo ilaahay ka daweeyo dhulbahante taas reer kale hay xukumo oo anigu is xukumi kari maayo ilaahay dhulbahante ka daweeyo ilaahay awoodiisa dhulbahante ha tuso ilaahay inuu aqoonyahan leeyahay dhulbahante ha tuso ilaahay inuu leeyahay dad wax garada oo wanaagsan oo nooc walba leh ilaahay ha tuso in gabdha fiican iyo dad fiican iyo dad dhaqaale leh inuu leeyahay ilaahay ha tuso dhulbahante ilaahay dhulbahante ha tuso in reer qabiila oo lamid iyaga lamid inuu maalin walba sacabka u dhigto inuu maalin walba u dhuldhunto inuu maalin walba ka daba wareego ilaahay dhulbahante taas ka daweeyo in ilaahay tuso baawarka ilaahay dhulbahante leeyahay aqoonyahan ku leeyahay ilaahay ha tuso ilaahay daciifnimada iyo miskiinnimada iyo dulinimada iyo waxa laga wiswisayo walba nin dhulbahanta oo dhalada ayaa umba maalin walba nin Puntland baryaya nin Soomaaliland baryaya wuxuu rabaa inuu wasiir ka dhigo wasiirba ku qanacsan yahay xogaa yaroo jeebka loogu ku qanacsan yahay waxa uu ku daba socdaa meesha waa reerkii dariskiisa walba ninka dhulbahante ee Burco ama Hargeysa Berbera raba inuu wasiir ka dhigto ka war ee baryaya waa nin dhulbahante waa reerkii dariskiisa isaa ayuu wasiir ka baryaya waa bal isagu laftiisu waa qabiil lamid qabiilkiisa ilaahay ha tuso inuu dhulbahante xukumi karo dhulbahante mar raba dhexdiisa inuu xukumo dhulbahante wuxuu rabaa nin kale qabiil kale inuu bariyo dhulbahante oo dhan inuu nin kale reer kale bariyo ilaahay waxaan uga baryaa dhulbahante awoodiisa iyo barwaaqada uu haysto iyo dadnimada iyo professorada iyo dhaqaalaha haysto iyo gabdhaha uu haysto iyo ummadda fiican haysto ilaahay inuu wada sususo kuwa qarmuunka ee xunxun ee lagu saliday inuu reer kale u bariska yaro waxaan ku sheegay Cabbaas oo ku dhamaysanay waa arkaysi in cami قال كعير نبتقليه انتاز عبد الكريم قولت كلاهلي وسير مدحوينها كالمدن هل مرة وساري كحيين كدالك والله كل ما يلقى كي يردي بطلان مسيرك هيرك كي قاعدين إنا عبي باشاقي هذا إنا عبي باشاقي وددك النوع عاسا نيكا خير مدحوينك وحيين الدونا ليا إيا نيكا وسير لم يدعو الدونا ليا إلهي وحردك ونقدوه إنا نرهيرك وسير الدونا إلهي ونقدوه ربك إلهي ونقدوه حطانا الله إلهي نقدم ربك له إلهي نرهك حامله إلهي نرهك دوصعله إلهي إلهي وسير والمشارتين وسير غسي والإساقو الأسعار ذاك السلوكية بوه الله كينية ربوه الله هاي وسير سي إلهي إيمانك يذكر عليه نباتنا هو حنقول بريئين وبرواقد يسكرامين يسير هاي وما صنت هاي thank you كسوها كورنيل أحمد جامع حاج عيسى قلة وكما عليه كورنيل أحمد قلة وأنا ما تكون بغضي قصري وكنت جاي مقالة Gothenburg وحتى أود أن قد داون السن تلفزيون عالمي وبري TV حرمت سامع مقالة Gothenburg يبرامج كا دا
barnaamijka xogta iyo waa bari aad baan ku salaamaya adeer waxa weeye dhalinyaradeenna meediyaha waxaa lagu dagaalamaya adeer waa maseerkiinii waa kuwa dhabarka ku jira waa idinka anagu waanu gabownay waxa la isku haystaa marba dhinac galowga iyo hargeysa loogu cararaya marba oday dhaqameed nin ahaan jiray meel soo taagaya waa wiilasha waa adiga iyo kuwa garbaha ku jira waxaan u dagaalamayna oo loo dhimanaya cali khaliif iyo madaxweynuhu iyo dhammaan golaha wasiir baarlamaanka Khaatumo waxay u dagaalamayaan waa idinka waxaan codsanayaa dhalinyarada reer Khaatumo odayaasha iyo kuwa xun meelaha ka hadlaya iyo kuwa meelaha tagtag iyo kuwa qabiilka dhulbaanta kala qaybinaya inay ka dagaalamaan dhalinyarada iyaga mustaqbalkooda inuu fiicnaan anaguna waan gabownay waan ku salaamayaa thank you barnaamij lamada inta ku mid waxaad ka tagayaa salaamullahi tacaala wa barakaatuh dhaqankeeniyo dhaxal soo jiray waa dhulkii uu loo dimaari jiray darwishtarta uqubo dhiig nafta dhiibo dhimasho u huray darwishtarta uqubo dhiig nafta dhiibo dhimasho u huray dhammaan madaxdiyo dhalinyaraday dhammaan shacabko way dhaqaaqday qof kastoo dhanka ayay ka dheelayeen